meeshan inaan dadweynaha iga soo horjeedana la hadlo dawladda federaalkana la hadlo oo aan tix kula hadlo waliba waxa la yiraahdaa reerka waxa ku dhacda saddex cudur saddexdaas cudur waxa la yiraahdaa reerka dayna seegayn midba meel baa laga magan galaa ilaahay inuu reerka uga ridin waxa la yiraahdaa talaxumadu waa cudur doqonnimaduna waa cudur cid weynaantuna waa cudur talaxumadu waa cudur balaadaysa reerka seegayn ilaa wadaga nooga ridin baa la yiraahdaa waa reerka hoggaankiisii doqonnimaduna waa cudur balaadaysa reerka seegayn ilaa wiilka curadka nooga ridin baa la yiraahdaa waa reerka ciidankiisii xooggiisii cid weynaantuna waa cudur baa la yiraahdaa reerka seegayn hooyada nooga ridin baa la yiraahdaa waa qasnajigi reerka dadkii madaxda ahaa ee dalka loo igmaday inay ummadda hoggaamiyaan ay madax noqdaan haddii taladoodu ay xumaato ummadda dhan waa xumaanaysaa ciidankii loo xil saaray inay waddanka difaacaan oo hoggaamiyaan haddii ayaguna ay gadoon waayaan xilkoodii iyo mas-uuliyaddii loo xil saaray iyaduna waa dhibaato kale dadkii hantiilayaasha ahaa ee dhaqaalaha hayay haddii ayaguna ay ku bakhiilaan ama ay ku masugaan oo keligood isku koobaan iyada waa dhibaato kale waana saddexda cudur ee hadda Soomaaliya u dhimatay oo dilay waxaan rabaa markii hore khaas ahaan reer Galmudug gaar ahaan reer Mudug Galmudug asaaskeedii udubkeeda idinka muday inaad dul qaadataan meeshaad gaarsiiseen inaad ka soo celin kalkacaad ku asaasteen maanta waxay maraysaa labadii gobole oo Mudug iyo Galgaduud inna horta gadaal u soo celino inna kala goobgeeda inna ka talin aad ka talisaan sidii ay ku horumar ku gaari lahayd oo aad dul qaadataan oo samirtaan intaas marka reer Galmudug oo gudbaan taxiye ma gabay midna ku tusin guud ahaan waxaan tusayaa marka taxdiya aan ka iri waxa ay u baahan tahay Soomaaliya ama Galmudug Soomaaliya dhan baan ka hadlaa ma ahane gobol iyo degmo iyo maamul goboleed gaar midna kama hadlo wuxuu yiri maroojiya dhirto xooga lagu miisay mukushiisa laga maatay iyo muuqa aragiisa biyo uu magawshiya hadduu mir iyo caws waayo ma huraayo gaajee hadduu aad u macaluulo isagoo maliila oo abaar lagu masiibeeyey madar iyo haddii roobankoodu dunida maasheeyo manka ubaxa kaymaha haddii doog la mari waayo ma xasuusto maqashiya nafta meel u dhiga kayde jiilaalku waa malag daraacdu ku meeyda macna male Itaaliya margiye muruqyo waaweyni ismaan raaca iyo talada waa laga macaashaaye midnima shinidu malabka iyo mid ku dhalisay madax iyo muwaafaqa la'aan ma Axmed Urataan manfaacada macaan kuma shubteen maqorro waaweyn mas'uul hagay makhluuqaas yar mahad ku gaaray inaan dawlad laga maarmi karin taasi waa u marage wax la mid ah matara toosan iyo maamulkii adag nin matala mujtamaca lahayn waa makaab dume inkastoo ay milyuumaad yihiin waa marto kale waa doqon masaakiina iyo magan la haystay waa igar maqaar loo sidoo lagu kormaalay waa maalmihii tagay wixii ciilna soo maray muuqii Soomaaliya bedelay magaci dheeraay oo midabta kooro sanada loogu maadsaday oo sida mawaashida dadkii loo maquunsaday ma samaata xaajadu haddaan loo mashaawirin miyir iyo ismaqal bay rabtaa taliya maarayn miilaysiga iyo ardayda murashax beeleed ismaqiiq martaba raadis iyo balan maqaar saara shar mutaxan masaqa diinta iyo mala awaal beena murug baa laga dhaxlay iyo lur iyo miidaan dad muslima malaayiin qof oo maahir iyo sheekh leh majnuun waalan ma hogaamiyo iyo ruux madiidine mu'min baan masiya good ka cunin jeer makaan qurahe mucaawina ka bari ninaan ku rabin waa matalakaade mugdigan si aan uga baxno iyo haatan macluusha waa inaan marxaladan labaad u macaashnaay waa inaan allaha maaliga iyo Muhammad ku doortay manhajkii rasuulkiisa sharciga midigta saarnaay waa inaan mas'uuliyiinta iyo madaxda raacnaay waa inaan mucaaradad la'aan wada mudeecnaay waa inaan muxaafidun iyo mu'ayidkoodii waa inaan naf iyo maal horno moodka bixinaay waa inaan waxay mudan yihiin laga masuugayna waa inaan ma kala maaranee aan ku milannaay waa inaan farmuuqnaa halkii miina loo dhigay mishin iyo shirqo looga dignaa cadow maleegeene maxabo iyo masxarad iyo kalgacal ugu madaxnaa
intaas ka badan miyaan dawladdu awoodna haddaan shacabkeenna hay madaxda dawladda intaas ka badan tabar ma u leenna waa intaan u awoodna waa intaas waxaa soo haray iyagii soo maahan afartaas madeeyada haddaan meeris kala doono madaxda iyo wakiilada shacbiga aan mar ugu laabto xilligii madfaca laga baxayo meel ku gaardimay magool waa irmaanaatay iyo sidigta maandeeqe wataas muraha loo colay hashi maydabta ahayd mudaniya marwey hawshu waa nin iyo moogiise waa inaad maqaam dawle iyo muujisaan sharaf waa inaad mahduul lama rabee soo madbixisaan waa inaad ka maagtaan qabiil ma lahan tawfiiq waa inaad ismaandhaafka iyo muranka daysaan waa inaad macquul waxaan ahayn mooshin laga geyn waa inaad musuqa ka hor tagtaan maasuq baa jiree waa inaad waraabaha mirtiye madafsi diidaan waa inaad kormeer yeelataan hela macluumaad waa inaad masaakiinta iyo maxasta dhowrtaan waa inaad madaal siman bulshada wax ugu miistaan waa inaad madaal siman bulshada wax ugu miistaan waa inaad mashruuc iyo ilmaha miro u beertaan waa inaad ka maydhaan qalbiga waa ka mirideen waa in macallimiin kale mabda'a laga mamnuucaa waa in loo miciinaa shacbigu waa muraal jabaye waa inaad ku maaweelisaan qowl macaan badane ma jaxaabiyaha madalhafiye wadar u moostaan kuwa maanta calanka u sidow magaca Soomaali xilku ma ahan shay fudud haddii aad u malayseen dhaartaad marteen iyo Allah milicsadoo eega maxsharkiiyo qiyaamiye nin ogi mawdka dabadiisa ma mulbiya mulkiga dawladda iyo maal shuraakaah rabbina kama masaamaxo ninkii muudsado laga miyi iyo magaalada bulshadu waa idin magane maslaxo ku maamula sinaan xaq iyo miisaan midayo u muujiyo wax qabad haydin mahadseene sidii macangagiintii iyo kuwii miiran jiray dhiig magligiyo masiibada ahaa maylinka afaysan taariikh madow iyo ka tegey mahadhaceedeed mid kasta markii uu dhinto oo meydkii la xabaalo meediyuhu mushaacada ka dhigo waxay maquurteen micnahoodii oo kale haddaad maanta noqotaan oo aajidkoodii martaan murugo weeyaan martidu wax siiya ninkii reer maqooradaye kaligiin magaabada haddaad murugsataan weelka ninba 100 milyuun qaato oo lacag Maraykaana idinkaa tix lagu maadsado iyo cayma jeersade oo mu'allifiinta iyo dalbaday muustikaysaa warintaan maryuhu idinka dhicin dhowr magaciina waxaan leeyahay dawladda federaalka ummadda xaqsoor hadday u noqdaanna ummaddu waa rabaysaa waana jeclaanaysaa markastana waa dooranaysaa laakiin hadday gacan bidix iyo nin jeclaysi iyo kana aniga bari xisbigayga iyo kana haddii la beeshayda iyo waxyaalo noocaas hadday soo gasho meesha iyo dhinaca iyo barbar u xiir barina la dooran maayo kursiga ku raagi maayaan waxaan leeyahay bulshada waxaan leeyahay dawladda taageero u muujiya dawladdana waxaan leeyahay bulshadiina u shaqeeya daacad iyo dar ilaahayna ugu shaqeeya sinaan iyo cadaaladna ugu shaqeeya waxay u baahan yihiin ma ahan inaad lacag jawaabka uga soo bixisaan ma ahan inaad guryo u dhistaan ma ahan inaad beero u fashaan ma ahan inaad haddii la kood maayo idinku aad badarka u karisaan waxay idinka rabaan wax tusid inaad ku hogaamisaan wadada toosan oo xaq ah aad tustaan ayaga tijabinaya wax kale buurka soo aday ayaga burburinayee inaad hore u dhaqaashaan bay idinka rabaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh